shacabka ku dhaqan xaafadaha dhaca bariga magaalada Jowhar ayaa saakay ku waabariistay biyo xawli sare ku socda isla markaana ka soo burqanaya webiga Shabeelle ee mara bartamaha magaalada Jowhar. Xaafada Horseed oo kamid ah afarta xaafadood ee magaalada Jowhar ayaa webiga Shabeelle fatahaado uga geystay agagaarka xintooyda saameyn xoog leh uu ku yeeshay. Cabdullaahi Maxamed Nuur, maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe sare Horseed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dugsiga uu qayb ka yahay saameynta uu geystay webiga Shabeelle isla markaana hakad uu geliyay waxbarashada ardayda iyada oo uu dhanka kale uu carabka soo mariyay in ardaydu ay ku sii dhawaayeen imtixaanaadka san dugsiyeedka kama dambeeska ahi. waxaa nala soo gudboonaaday shalay oo taariikhdu ay ahayd 15 in dugsigii uu ku soo fatahay webiga biyo ka yimid ay soo galeen. dugsiga sida hadda aad ka arkaysiina fasaladiisii oo dhan ilaa ay xafiiskii biyo ayaa ka buuxo. إن شاء الله بإذن الله الكريم دكسي عنك هذا هوش أنه وين أنودني وحي أهيد وحن كل حجرني مراجعة يعني كل حجرني ما دام فصل هذه السديدات يو فصل كأفراد فانفوركا أي امتحان كي قالي دونان بشمي شنت هذا إني قالان عن جعلين أنا ودني مراجعة أن ودني وحي وحي نقدر إني بيه دات كي أو قاضو سكول كي يوردن كراستي ميسسكي قللك دحدود أي كل حجران فصلادي oo dhan way buuxaan waxa ilaahay mahadiisa kulay waxana waa wax iska qornaa. fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle ayaa dhanka kale waxa uu saameyn uu ku yeeshay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar dhacana bariga magaalada. Khaliif Suweer Sheekh Maxamed oo kamid ah shacabka daga tuulada Boodale ayaa sharaxaya qaabka biyuhu saameynta ay ugu yeesheen tuuladaasi. aniga waxaan ka soo baxay tuulada liirada tuulada Boodale fasahaadaan u baxay cabo horaato فسهاد نجا بحد مالي عطومبة ما أنت جوالك إيدك مدى أربلدوس أنولسي دي بلدوسي عريري كلاجلين هذا وحن ساكن وسوق الله هاي إن اللوري نولسيو ميه نولو عابيو أو إلهي كده باريه يوردن أو هذا دمانت الأول كي لو دقيلي دمانت الأباريه يوردن واو دقين. وقدام بين عثمان محمد مختار باري قدوميه دقمة الجوهر يا بلشاد وجو باقيين يكخيب خاتان دلالة اللو جرو جوجنتا فتهذا وجستي وبيجي شبله. سيدات أركيسين بيان سي صعدة مقالة كو صعدة أركيسين سيدا ما كبدنا لعين إن وعين سيدان أي كل نقطي إن إسكاشي أي إسكاشتين شعبك إيه معمولك هير قبل إيه هير دقمو إن إلهي سبحانه وتعالى أيا مهداس له مركا الحمد لله إن كليجا بولو الشيخ برتوي ذاك السوفة هاي وحول صوبي أنت صاد ضد أمد ديجان كاس له إن أي كوبابان أما أي كوبركعان هذا الحمد لله لأنها إلهي نمعة أوكين واي ولو أي عاف ولي أي نمعة هذا وضطه هذا نحن لأنها عافضا نمعة هذا إله نصيه إن ودلالينا أنا قلنا وعن شعبك غير جوهر أو باقيا إن إسكاشي سميان أنا أي سوين محل دي جري إن هيئة يقالة وحكينته معايا لوجويدا ما أنت تاجن وحا هذا ما أنت إن برتوي وهير أي قاعدة أو نوصل وحواي نمك NGO يدا خاركات. kadib markii webiga Shabeelle ay dib u soo laabteen biyihiisii oo muddo ka maqnaa ayaa waxa deegaanada hareerdhaca webiga Shabeelle maalmahaniba ka da'ayay roobabka guwata oo suurtagelisay in uu webiga biyihiisu ay xaddaafaan fatahadana uu ka geysto qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar. Cabdifataax Axmed Maclow, Cabdifataax Zaki, Bulsha TV, Jowhar.